تاجنتها إلهي أجري حسنات هالكسية وحان أصل لكم هاد علنا يا رئيس وزراء ريبورتي ونسيي oo faahfaahsana oo ku dhisnaa ballanqaadyadii aan hore u sameynay ballanqaadyadaas yaa rabaa xoogaa inuu wax ka xasuusiyo marka hore intaan ballanqaadyada bilaabin reer banaadir mar walba waxaan rabaa inaan idiin sheego sidaad u jeceshihiin dowladnimo iyo inay dowlad ka dhalato ومجالات المقدسة يقصد مجالات الإحسان والإحسان وصومال البحيثة وحي كتب جميسة سيدة أطمر ربا أطلق حاجتها هو دور حاجتها خاصة سيدة أنا مرة بقيت هذه الكتاب مرحلة دي كانت صومرني هي دورشين صومري هي مركي لبوليس كتب وحاس كتب جميسة إلى تجيء دل فرصة ودولة يا صومالي إلى فرصة هم الرجال إلهي أجل الكسر مقال لنا الرسول قريسا سيدي حج يفصل قريسا إن شاء الله جولينا ballanqaadyadii aan ummadda ka ballanqaadnay waxay ahayd inaan ku shaqeyno rabitaanka shacabka oo aan ognahay waxay tahay koow inay tahay dowlad inay wada shaqayso dowlad iskhilaafta dooni maysa annaguna waxbaan ka baranay dowladihii la soo dhaafay wixii qaban kareen waa qabteen waa u duceynay heer iyay soo gaarsiiyeen waxaan ka baranay waxay tahay in dowladdu ay ku macno fiican tahay ay ku khayr badan tahay inay wada shaqayso wada shaqayntuna ay ka bilaabato madaxweynaha iyo ra'iisul wasaare madaxweynaha ama xukuumadda iyo baarlamaanka iyo shacabka ay matalayaan oo idinka ah dowladda iyo caalam intaasoo wada shaqayna annaga waa naga go'an tahay وانا نقول إن هرب مريض ولا شيء خاص بعدما قلنا هاي ولا شيء الآن يا خلاف صومالي يمشي سوق جالس وهم بلغاري أو بيجي كيا أما أركيه الفوق ومتى صومالي إن هجر السعودي فجر ومتى صومالي دوليسو والنظر ينظر نبض يا نور وياه نبض يا نور هدايش الجري ومد مجلس وحنا بيش هو نبض يا نور كو وايد شيء دانك شخصي اللي يقوله ولو يقوله دانك يقول واحد حيواني يقبل عربي هو يريد أن تقول حاجة كذا إن أنا دين كيلو صار دين بلنقاري هي وزارة يجوا نكسر هي وزارة أنا بلنتي واصلة وبكرة وزيرة كون أحسن وزيرة وحلا رفضية بعدما نحن بريء الجوجان إنه كان شغالة كون أحسن بلنتها مليفولي بلنتها هو كل جمالين جابوا هذا مليفولي أمانة كوا حكاية هنا بلنتها أمانة ومدى الصوماليين واخر الشخص ولا كلا فوقان وهذا السجن قبيل يا قبيالك يحكر منه أما أنا وحيك وهي اليوم يبتين إن الشيء هاي هو هينه وأن السكين هينه وأول الجري من الفوش هينه وهي اليوم يبتين سيف يحرقوا منه وأن لا تقال المسلمان سوقا أي سنجري شخصي كلجيس قالوا ناحة أو كل نرى وده هشام وأن معالي إلهي نسيه خيرات تلك الليل ويدي شو وده جاروه معقول ما أنا أقبله وده كان برواقة كجلته إن وير صومالي جوا صومالي إيه قاعد يفوز إحدام ما أنا دوني له وأنا كتك عليه ريبورت ويدي سيه الوزارة
وحالة كغفر يا إيديك دلقات يعني كربا يوم الشقين إلى سيح الإنسان أنت حتى المقشين واللحية عشاء وحالة كبل قال لنا أفر سنة كبعد إنا نقول الدولة لا كم عام أفريقيا هدول لا هي هدول من مقرشة وابلاو متى وحوشين ضلك وحا ميشا استاذي الأركيسان ومصماس مركا أركيسان أركتحيسو أما حجر وحا الناحيين ومصماس مركي لوتي أسكرتها فرمي كل كوكا على كل هيس مشاهر كولا ومصماس مركي إذنك مشاهرين الذين يا مشغالها دولة حيث لوتي مشاهرين ومصماس لعكت ويك تايا قفجة في سيئات وانا جوجينا اما انا لا نودي بكير وحلا صبر امنيga wax kaligeen anagu asreen karnaa waa wax noo wada yaal shaqo noo wada taalo way amnigaasi wuxuu ku xiran yahay ciidamadan haysana tirada waa taqaanaan guri walba iyo geed walba ma istaagi karaan idinka rabaa inaan u sheekaan xogta meesha cadow ku jiro meesha qofka qaran dumiska uu ku jiro idinka rabaa inaan soo sheegtaan amniga markaas laga rabaa inay gareeyaan oo ay qabtaan waxaan uga mahad celinayaa shalay magaalada xaafadda waa bari miinadii ninkii ku aasayay oo qof shakhsi ah oo reer waa bari uu soo sheegay haddii arrintaas ay badato qof walba uu magaalada degan oo reer banaadir uu xil iska saaro oo uu sheego kuwa guryaha ugu jira oo sharwadayaasha ah waxaan ii sheegaynaa 6 bilood magaalada nabad inay noqonayso insha allah waxaa kaloo ii sheegaynaa annagu waxaan u taagannahay ballan u qaadin oo aan daaru marnay xasiloonida magaalada yaan daaru marnay xasiloonida magaalada waxay tahay magaalada bilicdeeda iyo quruxdeeda iyo sharafkeeda inay soo noqoto inay la tartanto Kenya Nairobi inay la tartanto Addis Ababa inay la tartanto caasimadaha adduunka ma kula tartami karno iyadoo qolada magaalada dhexdiisa maraya oo qoryo ku saaran yihiin oo shacabka lagu leeyahay kulama tartami karno qofkii askariya oo qof shacab wax u geysta ogaaw waxaad ogaataa tiirkaa kuu dambeeya maxkamadda ku saari waxaa kuu dambeeya haddaad qof disho waxaa kuu dambeeya tiirka inaad istaagayso ciidamada qalabka sida waxaad ciidamada qalab sida u tihiin shacabkiina inay ilaalisaan inaad ixtiraamtaan inaad la shaqaysaan iyagaad wax ku tihiin haddaad laysaan oo aad xurmada raysaan yaa dowladu nahaynagu yaad idinku ciidan u tihiin shacabka kiisa liita ha la qaado kiisa tabadaran oo laga xaqdaran yahay xaqiisa ha la siiyo kan tuuga oo qaayinka oo qarandubislaana qabta xooggiina kaas ku bixiya shacabka ha ku bixinina xasiloonida waa taas marka in qof walba uu sharcigu hoggaansanaado ma aha qofkii qori haysta inuu ka awood badan yahay shacabka iyo dowladda maaha waxa weeye qofka qoriga haysta oo ciidanka ah wuxuu qorigu u haystaa difaaca dalkiisa iyo ummaddiisa intaasaa lagaga fadhiyaa waa ogahay hawl fiican baad qabataan maalin walba waa u heelan yihiin difaaca dalkiina laakiin khaldaadka dhacaya iyo kiina xun oo ammaanka la dagaalanka argagixisada waa laga go'an laakiin waxaa nooga horeeya inaan leenahay walaalaheena tihiin carruurteena tihiin
إلهي يسوع عليه نوعي معنا أنا جالسين واحد تهنيه دولة في عواها يستاهل دولة آمن الله يستاهل دولة عارف لحظة الله يستاهل إذا كان أمسهم نرجع عليهم أو الدفاعي حتى تكبروا الرسالة كلها وتدرينا جوجي هدف ومدين حلينا عندنا حب كورنا إمام الله إمام كوا أجنبية وهل كان وجي من غير يبقى صومالي يدينا دولة دمو أو يدينا هولا أو عالم نجحنا أو نجحنا صومالي إذا أي بحثنا أو نجحنا المشمل الإيماني ويجب العلم إلى أولاد دخل ويقصى علينا دخل من أجمله دخل من الدولة وحكو شقينا وحوين والدها شكلي والدهو شكلي وحكو شقينا وبلن كينيهي دان هدالكا يدالكا يديك عينك كتلت السياسة سيدا تحيث الوقتي سيدي الكلية كان أفريقيا وأوكي ما كان حالة كل وأوكي إنا وحكبت الحالة وأخو حصل إنا حالة وحكبت الشاء وأخو حصل وأقارتها دور في الهان الدين حالة يضرفوا على الكوبيكان أنه ولا قرب تاجرنا حي مشاهدين وواجد مصد ذلك إذن كنا ذلك نقول قد يالد لكفر هذا قد يالد واتسوا مالي قرمنا البوريسي كفر هذا قد يالد وأركي إذا قد يالد ماشي نلكي إن إذا ما شيء يكون الاحتلال إن أخذ تغرصد احتمال الحاصل على إنه حدثناه وبناتي إن الشيطان إلا يقبض وقتا ما يشهدوا حنا جالسين قد يالد منك عدو دريس حرصه على كان الكرف كل حرصه ومن قرن قبيل ما لنت قبيل آدو يريسو وقول وكبه على عيدك وانا كمه وانا الله محمد علينا وحاطط على شيء قرن الصوم عليه إلى دفاعه انت أصلا كافر وحاطط وقول عدالة أمانه هي أمني وحوض وطح وهذا عوضه عدالته صوفي سنة سوق هذا استحد له صوصه وروح كتب عدالته عدالته وطلاقه ومتى الصومالية دولي باتي سنة إن حق وضيه الويان وحفي عمار رجع وضياشا وحاكمين تاني وحاكمين شيئنا هذه أول أيجرين إن تروح مكان شنجة وتكون ركان وقت كده وقت مالي إن هو يويس أما قف حقي شو هوياي هذا ما تيسان وقت كده وقت مالي عدالة بعد كده وقت عدالة فين ويدان أنا كده ما متشان شعب ما متشان دولة ما متشان وحكون ما يلسان حبسي مرتبة دعي ميسو oo ana ballanqaad oo dawladda ana ballanqaad qof Soomaali intuu hortago maxkamad cadaalad darro u sameeyo hawshaasi waa waxyaabaha dalkan meesha ay taagan yahay gaarsiiyay oo Ilaahay noogu carooday oo aan adduunku wax uga hooseeyo laba qof iyo saddex qof oo xun ka yeelay meesha inay magaceena isticmaalaan ummadda Soomaaliyeed ay duleeyaan ay dhibaato u geystaan oo ay xaqdarro ku sameeyaan waad ka sameeyeen وإذا لا حساب طبعنا هذا خوف عن قبضتنا وعدالتنا أننا لو أذكوها عمرنا آخرنا إلهي وأذكوها عمرنا جنة الجلسان هذا تبع تصل ميسان أننا لكم قادم آخر وأكون ميسان أرنتها حرمات تقالة أو كفر العدالة مركي أمانة إلى الله أو أمن كامل أو عدالة كامل تقالة هو حرمري ومدى الصوماليين waxay u jeesaysaa marwaaqo iyo horumar iyo nolol waa igu balan dhalinyarada Soomaaliyeed oo boqolkiiba 70 oo shaqo la'aan haysto afartan sano haddii Ilaahay yiraahdo inaan ka shaqeeyo inay shaqo helaan maxaa yeelay waxaan ogahay qaacidada ama formula marka laga shaqeeyo amniga
laga shaqeeyo amaanada cadaalada laga shaqeeyo qof walba waa noolaanaya xitaa annaga bixinayna welfare wax la yidhaahdo macaawin annaga bixinayna maxaa yeelay wixii jeeb shaksi aadi jiray annaga u hayna qofka xuryaanka qofka maskiinka gabadha agoonta haysata ilmaha agoonta kulli annaga dowlad u ah ilaahay anigu nugula xisaatamaya dhaqaaluhu waa horumaraya haddii dadweynow shacab weynow aad nagala shaqaysaan dowladda aad kala shaqaysaan cadaaladda haddaad nagala shaqaysaan amniga nagala shaqaysaan maxaa yeelay markii magaaladan amni ay noqoto waxaa noo imaanaya maalgelin yaa imaanaysa maxaa yeelay dalkaani waa dal khayraad badan dhaqaaluhuna wuxuu ku istaagaa saddex arrimood wuxuu ku istaagaa dalku waa inuu khayraad leeyahay dabiiciya waa leenahay dalkeenu waa buuxaa labo waa in dalku maamul iyo shaqaalo fiican oo hufan oo xirfad yaqaanaha uu leeyahay marka saddexaadna dhaqaaluhu waa imaanaya oo labadaas dhaqaalaha ku xiga oo capital la yidhahda way naga go'an tahay annagu inaan la tartanno caalamka waa naga go'an shacabyo waxaan rabnaa inaa idinkuna la tartantaan shucuubta caalamka inaad la tartantaan annagu waa nagu ballan waxaan la tartamaynaa dowladaha africa ma dowladaha yurub markay noqoto transparency markay noqoto ammaani markay noqoto idinkuna waxaan rabnaa la shaqaynta iyo canshuur bixinta iyo maxaan ku dhahdaa amni ilaalinta inaad nagala shaqaysaan si aan annagoo aan ula tartantano caalamka intiisa kale intaas waxaan kusoo gabagabaynaya ummadda soomaaliyeed hadday isku duuban midnimada Soomaaliya waa muqaddas ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan haddaysan u midoobin danahooda haddaysan dalkooda u midoobin haddaysan diinkooda u midoobin caalamku way ka harayaan caalamka waxaan kula tartamaynaa annagoo mid ah annagoo wada jira yaa caalamka kula tartamaynaa caalamku wayna fiirinaya sidaan wada shaqeyno shacabka iyo dowladda say wada shaqeeyaan haddii ay arkaan inaan kala dhex geli karin waa noo soo istaagayaan wax alla wixii aan ka rabnana waa nagala shaqeynaya annagoo siman annagu cidna u daba istaagi mayno cidna u daba istaagi mayno annagoo wax qabsan karna cidna u daba istaagi mayno innagoo isku tashan karna annagu waa inaan isku tashanno taasna waxay ku imaanaysaa dowlad fiican iyo dad fiican oo wada shaqeyn iyo ku imaanaysaa caalamku waxay u sheegayaan ganacsatadooda marka inay Soomaaliya maalgashadaan maalinta Soomaaliya maalgashi u dhaawado oo dowlad nadiifa ay joogto iyo shacab nadaamsan waxaan sheegaynaa Soomaaliya muddo 4 sano inay ka horumarayso dowladaha Afrika goolkeenu iyo bishinkeenu waxa weeye 4 sano ka bacdi inaan ka horumarno Afrika hadda yaa sanadna waa ka horumari karnaa waxay ku xiran tahay rabitaankeenu annagu ma rabnaa inaan dad Soomaaliyeed oo wax walba wadaaginaan ma rabnaa inaan noqono dad ilaahay ugu xamdinaqa inaan leenahay dal fiican inaan nahay hal dal inaan nahay hal diin ilaahay ugu xamdinaqa karnaa ilaahay ugu noqon karnaa haddaan intaas gaarno oo iscafino Soomaaliya way istaagaysaa Soomaaliya ha noolaato Soomaaliya